السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة ونكسن جمعة مركل الجوجو وحنا قفلتها إن سوق جود بينه يعني وحابها بيزنس كا أما جناعسيجا كعصب يو بيزنس استراتيجيز وحابلا مده ما أنتو حاربة إن إذن لو ذاقو يعني بوليسي أبديت أو أي سماسي شركة أبل بوليسيgaas ama yani wuxuu dhabar jab ku noqday shirkado waaweyn oo dhanka media ka shaqeeya sida Facebook waxay leedahay wax ka badan yani $1 trillion lacag ka badan saasay tahay bolisiga markuu soo baxay shirkada waxa ku dhacay jahwareer iyo inay argagax badan dareento maanta waxa ka sagareynayna ama ka hadli doona yani bolisiga muxuu yahay sidee ganacsiga oo sameeynaya sidoo kale yani adiga daawanaayo yani hadii ganacsi aad leedahay ama ganacsi aad u shaqeysid yani saameynta oo ku yeelan doono bolisigan sub ee shirkadda soo saartay waxa loo yaqaanaa ATT framework ama App Tracking Transparent Framework wuxuu soo baxay December 2020 bolisigan wuxuu diiradda saarayaa ilaalinta xogaha dadka isticmaalo mobilada shirkadda Apple sida ognahay yani adduunka maanta waxa ugu badan ee loo tartamayo helitaankiisa waxa waay data ama xogta oo dadka oo yani bini aadanka sida darteed yani shirkaddu waxay isku dayaysaa in ay ilaaliso xogta yani dadka isticmaalaya mobiladeeda laakiin taa waxay dhabar jab ku noqotay shirkadda weyn ee Facebook oo badana ku tiirsan dakhligeeda halka uu ka soo galo ay tahay yani xayisimaha ay sameeyaan marka sidee yani bolisigan shirkadaha uu saameynaya soo kale yani kaliya ma saameyn doono shirkadda Facebook iyo shirkado kale soo kale wuxuu saameyn doonaa ayu ganacsi ku tiirsan xayisimahan digital advertising loo yaqaan soo hadii shirkad aad leedahay oo shirkadaada badana ay ku tiirsan tahay xayisimaha Facebook iyo Google iyo YouTube iyo Instagram ku saameyn doontaa soo kale waxay saameyn doontaa dadka loo yaqaan creatorska oo pages kale oo Facebook lacagaha ka helo ayagana way saameyn doontaa marka bolisigaas wuxuu noqon doonaa dhabar jab aad weyn ganacsiga iyo dad walba isticmaalayaasha Facebook ku ah iyo ganacsatada marka bolisigan wuxuu u shaqeeyaa sida soo socoto horta number 1 waxaan rabnaa inaan fahanno sida xayisimaha Facebook ay u shaqeeyaan dan waxa arki doonaa saameynta oo ku yeelan doona Facebook marka ay waxaysiinayso waxa isticmaashaa yani wax loo yaqaano user profiling ama qofka iska soo diiwaan geliyo memberka Facebook waxa la aruuriyaa xogtiisa tusaale yani personal information kiisa meesha uu ku dhashay meesha uu joogo da'diisa waxa uu jecel yahay yani waxa uu badana la falgalo yani page-ka like u saaran waxaas dhan shirkadda ay aruurinaysaa waxay dhigaysaa database dan waxa imaanaya company u baahan inuu xayisiin sameeyo company-ga wuxuu diiradda saaraa marka database-ka Facebook tusaale asoo dhahayo ani waxa u baahanahay yani dad magaalada Muqdisho ku nool da'dooda intaas ay tahay yani jaamacad ka soo qalin jibiyay waxaas marka waxaas waxa la dhahaa in la aruuriyo xogtii oo qofka iska soo diiwaan geliyo Facebook halkaas marka waxa ka imaanaya caqabad ah hadii bolisigan ay shirkadda Apple ay keentay in yani xogtii dadkaas aanan la heli karin si xogtaas loo helo qofka yani userka waxa la weydiinaa su'aal ah yani ma u baahan tahay in xogtaada yani ay shirkadaha kale isticmaalaan hadii oo ha dhaho micnaheedu waxa waay waa xayisiintaada way gaari kartaa hadii maya oo dhaha micnaheedu waxa waay waxa kugu adkaanaysa in dadka mobilada Apple ka isticmaalo ay xayisiintaada arkaan marka waa nidaamkaas cusub ay Apple la imaatay wuxuu ku yeelan doonaa saameyn adag xayisimaha iyo sida u shaqeeyaan soo kale waxa adkaan doono yani in conversion lagu sameeyo dadka Apple ka isticmaalo sababtoo ah xayisiinta marka sameeysid phase 1 waxa waaye yani targeting aad sameynaysaa marka targeting-kaaga aad sameyso oo dadkii aad target gareysid mustaqbalka waxa u baahan doontaa wax loo yaqaano remarketing ama retargeting in dadkii xayisiintaadii ama website-kii booqday inaad dib u market gareysid oo si conversion ah ugu sameysid ama lacag yani ay productiga kaaga iibsadaan hadii qofkaas oo Apple isticmaalayo waxa kugu adkaanaysa ina remarketing-kii iyo conversion-kii wixii la ku sameysid marka tusaale halkii qof hadii oo lead generation-ka waxa la dhaho oo mobilka Android marka qofka xayisiinta isticmaalay uu $1 yahay Apple waxa laga yaabaa inuu noqdo $10 ama waxa adkaan doonta in qof Apple isticmaalay la gaaro sida darteed yani shirkadaha waxa lagu la talinaa ayaga qof walbo company leh inuu noqdo media oo asi
يعني uusan ku tiirsanaanin kaliya xayisiinta laakiin waxa laga rabaa inaad sameyn kartid value content wax loo yaqaano yani wax bulshada informationka aad la wadaagaysid inay noqoto wax interesting ah oo ay dadka jeclaysanayaan marka waxa soo koobayna yani hadii aan soo koobno si general ah yani policy-gan cusub wuxuu saameyn ku yeelan doonaa qaabka wax loo xayisiyo sida ognahay Facebook waxay ka guurtay nidaamkii hore waxayna rabtaa nidaam virtual reality ah inay tagto marka yani waxba soo dhan oo isbiirsaday waxay sameynaysaa in yani shirkadda Facebook ay raadiso move cusub ama nidaam cusub si yani ay dhaqaalaheedii iyo businesskeedii u sii socda waxa maalmaha soo socdana la rajaynayaa in shirkado badan sida Amazon iyo Google ay la yimaadaan yani policy-gaas amal oo tracking-ka ama daatada xogta dadka isticmaalo aan la heli karin marka shirkadaha waxa ku adkaanaya in xayisiin la sameeyo marka dadka content creators-ka loo yaqaan ee yani caanka ah ee wax soo fiidiyoyada iyo waxyaabaha sameeyaan waxa ku adkaanaya in lacagii Facebook iyo meelahaas ay kali jireen aysan sii socon marka keeskeena halkaan uu kooban yahay hadii waxa ka faa'iiday qaybta hoose ee commenting noo soo qor sidoo kale koorsooyinkeena e-commerce iyo digital marketing waxa ka helaysaa website-keena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh